السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وحنا لها هذا أنا نبض قوا وولاش دقة يوتيوب channel كان نقدر نسنا ويوتيوب channel كيني ويوتيوب channel كيني تبتواصل أصحابتي انتوا هرين لو سجيتوا حلنا آد بدو ما تسنتين ما شاء الله انتوا نقول عصبنا حلنا هاي قعمو فرن إيه ولا لنا نجي حلكوا سودوا هذا ما شاء الله عاوا وحني هيا مياندها هرتا إن آد بنقحهم هاي ninkii waxaan ku yiri macallinkii ragga u soo baxay dhiirigeliyay ragga u soo baxay ninkii dhalintii Soomaaliyeed u soo baxay ee la dhahay Mr Xaliye oo xaq ay gaadheen dumar fara badan oo cadhooday oo halkii shinacley biilashii laga jaray ay soo weerareen ninkii Xaliye horta anigu ma sha Allah ninka fiidiyoodiisa aad baan u daawadaa mar waxaan isdhahaa horta kaalay gabar miyaa tahay misanin baa tahay ninkaas horta aniga fiidiyoodiisa waan ku haystaa ma sha Allah aad baan u taageersanahay waan arkaa su'aalo badan oo la soo weydiinayo la leeyahay ninka Xaliye in dumarkii iyo ragayba isku diraya nimankii naagayba isku diraya may baan dhihi lahaa anigu Xaliye waxba isku ma diraayo magaciisu ma sha Allah kor ha jiraan leeyahay de ninku magaca ka miskiin ma Xaliye markaa wuxuu rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed siiba wiilasha mushkilad haysatay iyo nolosha ay fahmi laayeen ayuu rabaa inuu wax ka qabto ma sha Allah waan leenahay dhalinta Soomaaliyeed markaan leeyahay walaalahay baa ku jira ma sha Allah de markaan way iska fiican tahay adduunka inuu qofo maalin wax barto naga dumarka miyaa la naga xanaaqay imisa waxaan ku irmaama milyan xaqeena ay u doodaysay imisa intaasoo gabadh Soomaaliyeed ay xaqeena u doodaysay imisa Naciimo Joker waxaan ku yiri nimanka wax badan inaga reebtay marka gabdhow waxa loo baahan yahay maanta nimankii hadda Allah macallin uu soo diray marka inigu hawsha dhankiina ka wada waxaan leeyahay inigana waxaan neerjeenina macallimad wanaagsan inay inigana nii soo baxdo marka ninka Xaliyaha loo hambaliyeeyo waxaan leenahay nabarkii ku dhacayna nabar gardaro Allah uga dhigo laakiin anigu maanta waxaan rabaa ninka Xaliye waa kuma horta sidaad ogtihiinba Soomaaliya qofka bilaadanka inuu fikra loo baahan yahay anigu marka aan rabo maanta inaan wax ka sheekeeyo amba yani sheeko inaan la wadaago markaan rabo sheekadaas waa inay noqotaa wax aniga noloshayda soo maray bal marka waxaan rabaa caaw Xaliye waa kuma Xaliye imisa sano ayuu isna daanyeer soo ahaa bal su'aalo dhowr ah oo jawaabo u baahan ayaan caaw rabaa inaan la wadaago insha Allah midda ugu horeysa horta aniga isweydiiyo inkastoo aanan aqoon u lahayn waxa weeyaan ninkan Xaliye nin xaas lamiya oo daayarnimadii ka baxay mise waa nin ilaa hadda daayarnimadii ku jira mise sanaaysan la isticmaalayay ninkan waxa u maleeyaa Xaliye kow sidoo uu noola hadlayo iyo hadalkiisa sidoo noo soo gaarsiinayo waxa uu yani wax ka bixinayo ama dhalinta Soomaaliyeed uu rabo inuu ka waaniyo waa wax horta isaga ku soo dhacay taas Xaliye waa inaad dhageysataa waa inaad maqashaa Xaliye waxaan ku leeyahay inta aad 10 dhalinyarada Soomaaliyeed u dhigayso waa in inta waxaan leenahay dhabarka aad soo saaratay marka ma sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad naqis kale waxaas dhanba hadii inta oo soo martay maanta waxaan ku yiri had wali qurux badan tahay de xoogaa hal dhankii indhaha baan waxa u maleeyaa hadee ookiyaala aad wadataa dhanka bidaartana waxaan ku yiri kulleeyadna waa fikir badan oo ku haystay iyo bangiyadaada qaar oo hore loogu dhacay ma garatay marka ma sha Allah Xaliye anu aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkiisa ma sha Allah gabdho waxaan leeyahay Xaliye haduu boqol kili nii soo diray haduu Xaliye niga hor istaagay waxaan leeyahay gabdho kartay isku yaalo shaqaysta oo iniguna waxaan ku yiri nicda naga daayo Xaliye la dilay Xaliye meesha lagu haystay naga daaya oo tusa Xaliye inaad iniguba nimanka waxaan ku yiri waxaad siineyseen midda kale ee meesha taalo waxay tahay war Xaliye adduunkan ma niman baa wax siiya anagu zamankan aan maanta joogno gabdhaha wax bixiyeen anigu caaw laga bilaabo waxa noqonaya Miss Xaliye haduu nimanka u soo baxayo amba nimanka wax u sheegayo oo nimanka 10 u dhigaayo anigana waxaan leeyahay dumar oo iniguna dhankiina war maanta imisa dumar niman wax siiya inta qaaraan la ururinayo inta masaajid la dhisaayo inta wanaag oo dhan la qabanayo dumar baa bixiya marka iniga tiini Xaliye wuxuu u arki waayay halkaas waxa niga muuqata Xaliye inuu sanado badan daanyeer soo ahaa
كلمة داير مركا ليه الباكا فيري وحاسدا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم داير كمان يسي صعدة مركا هورتا ما شاء الله أنيقو عاو حاميشة وصوفريستي أول حاجة أنبا مدى أوغو هوريسا waxay tahay inaan la ii soo ogaado oo commentiga la igu soo qoro xalliye wiil miyaa mise waa nin xaasle oo daayarnimadii waxaan ku yiri ka baxay mise waxaan rabaa videogaygan inaad gaarsiisaan xalliye si aan jawaab sax ah u helo xalliyow live-kaaga dhowr habeen baa soo qabsaday dee dadka aad u badnaa maasha Allah waxaan ku yiri kulli gabadh lama soo qabanayna meesha niman baa ka buuxo waxaan ku yiri intii ay daayarnimada ku jireen waxaan ku yiri ka wada calaayo 2 sanaan daayar ku jiray $200 baa gabadha u diray war gabadha marka $200 u diraysay imse saacadood bay ku sheekeynaysaa gabadha marka $200 siinaysay imse saacadood ilaan meesha hooyana kuma joogto aabana kuma joogi ayay ku helinaysay gabadha aad 200 u diraysay sheegaysay imse sanay ku ducaynaysay waxa laga yaabaa kuwa badan oo maanta waxaan ku yiri xalliye markuu soo baxay aad moodaba dumarkii inay dagaal ka yihiin waarba 200 bixisay aad gabadh walaashay aad siisay daanyar kumaad hayne laakiin si duca kugu socotay ma sha Allah duco ayay gabadhu intaaba ay ku soo direysay waa kow midda labaad de daanyaradu waxaan ku yiri nin kastaba intuu daayar iska noqdo lagama tagin imsa intay daayar haadeen markii dambe maanta ma sha Allah waxaan ku yiri gabadhii ya sariir ay ka soo wada kacayaan marka xalliyow anigu barnaamijkaaga waan kugu taageersanahay laakiin se please waxaan rabaa live-kaaga markaad aragto in gabadh ay ugu qoran tahay Muniira Tusmo fadlan inaad iga qabato insha Allah haddaa su'aasha lagu soo weydiinin ana maanta ku weydiinayo waxaan rabaa inta sano ee daayar ahayd iyo cashiradii kuugu darnaa iyo inta lacag aad bixisay waga daayarnimada ku jirta inaa ogaadaan rabaa xitaa still haddaad daayarkii ka baxdood hadda xitaa nin xaasla tahay kulli still waxaad ku dhex jirtaa daayarnimadii midka waxaad kamid tahaan malaya kuwa markay baxaan la dhaho kaale wareeya halkeed u socotaa shaqadood ka timid Soomaaliya hawsha guriga qabsadeen yaa wareeya halkeed u socotaa kan kala samee meeqa saac soo noqonaysaa 2 saac kadib waan ku sugayaa 3 saac waan ku sugayaa marka kulli xalliyo waxaan ku yiri barnaamijkan aad noo soo bandhigtay waa wax kugu soo dhacay de waxa aad u wanaagsaneed inaad naftaada kaga bilowdo yaa intaasoo sano ayaan gabadh wax u diray intaasoo sano ayaan wax siinay intaasoo sano ayaan wax siinay de waxa dhan waxay hayd inaad anaga horta in adigu iskaga bilowdo marka horta aad iyo aad baad u mahadsantahay ma sha Allah dhalinyar badan ayaa casharadaadi ku faa'iiday caawiya habeen dambana inta aad ka maqan tahay aniga sii bedeli doona insha Allah halkan waxaan igu soo qori doonaa videoga marka uu dhamaado insha Allah WhatsApp-kayga waxaan asaasi doonaa insha Allah barnaamij aan intuu xalliye daayarnimada ka saaray ayaan rabaa gabdho wanaagsan oo yani lacag horumaraysan si qaadanin miyaan dhaha ya warda wiilalo waxaad dhahdeen nimka daayarnimadii waan ka baxno qof kasta markuu soo wactamo wuxuu leeyahay wallahi anu gabadhi blog baan saaray gabadhi waan eriyay de markaa muxuu rabaa ya ma wiilal baa wax u diraysin markaa subxaanallahi alcadiim markaa wiilku marka gabadhi uu la sheekaysanayay ay jacayl isla abuurayeen ay nolosha isla qaybsan lahaayeen markii lagu diray la dhahay gabdhaha dhan blog saaro hala sheekaysanina markaa wiilal xageed u cararaysin anaga wiilasheeda Soomaaliyeed waan jecelnahay ma rabno inay balwada naga bartaan ma rabno dumar cadcado waxaan ku yiri diin aan lahayn inay naga raacaan wiilasheeda Soomaalida xalliyo waan rabnaa wiilasheeda noo dhaaf dhalinyarta hadda laga xoreeyay daayarnimada aniga u furaaya xafiis baan furaya insha Allah gabdho waxaan soo diyaarinayaa wax horumarisa aan rabin oo wuxooga waxaan ku yiri habeenka arooskooga duuduubni u qaadanaya marka asxaabi ay la soconaysiin nambarkayga WhatsApp-kayga waa kaas halka bay igala soo xiriiraysiin intii xalliye oo daayarnimada ka saarayba aniga barnaamij u haya soconaya meel ay ku faa'iideyaan ana lacag lagaga dhacayn ay daayarnimadana kaga baxayaan insha Allah aad baad mahadsantihiin inta video xiga aan ku kulmi doono waxaan leeyahay fadlan videogaygan hala gaarsiiyo xalliyo su'aashaas kaaga ma hadhaayay habeen iyo dharaar waan ku soo weydiinayaa waxaan rabaa xalliye inta sano oo daanyeer u soo ahaa waxa arintan ku dhaliyay kulli waxaan ku yiri daanyeer iyo 2 iyo 3 iyo 4 boqol daanyeer in ka badan inuu soo noqdo uma leeyahay aad baad mahadsantihiin
videogan waxaan leeyahay bal sii share gareeya haddaad videoga halkan soo gaadhay oonad weli like aad saarin videoga dib ugu noqo like saar subscribe tana noo saar aad baad mahadsantihiin intaan video xiga aan ku kulmi doono waxaan leenahay ha lagu saliyo xabiibkeena allahumma salli ala sayyidina maxamed wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu xaliyaha la gaarsiiyo videogan wa calaykum assalaam